والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن روحاني هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان يا هلا بك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين صوم وطاعة للرحمن هل هلالك يا هلا بك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. walaalayaal waxaan jeclaystay maanta inaan dila wadaago qur-aanka fadligiisa aad u fara badan yahay. rasuulkuna sal alla alay wasalam wuxuu inoogu sheegay axaadiis aad u fara badan, marka waxaan jeclaystay in xadiis ka mid ah axaadiista fadliga qur-aanka sheekeynaya inaan maanta idila wadaago. xadiiska rasuulku wuxuu inoogu sheegay sal alla alay wasalam qaala rasuulullahi sal alla alay wasalam man qara'a xarfan min kitaabi illaah falahu bihi xasana walxasanatu bicashari amhaaliha laa aqulu alif laam miim xarfun walakina alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun. qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulku wuxuu lehy sal alla alay wasalam man qara'a qofka akhriya xarfan min kitaabi illaah hal xaraf oo ilaahay kitaabkiisa ka mid ah falahu bihi xasana waxaa u sugnaatay xasanaad baa u sugnaaday walxasanatu xasanadaasina bicashari amhaaliha waa loo toban laabayaa, toban laab bay u dhigan tahay. laa aquulu ma odhanaya alif laa miim xarf laakiin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun. rasuulku sal alla alay slam saasuu leeyahay. walaa aquulu rasuulku wuxuu lehy sal alay slam ma odhanayo alif laa miim xarfun walaakina alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun. sidaa awgeed alif laa miim keliya ood akhrisay ayaa waxaad ka helaysaa 30 xasanaad halaa xarf 10 laab. sidaa awgeed walaal khayrka aan ku dadaalno, bishii ramadaan ayaa lagu jiraa, akhrinta qur-aanka inaan ku dadaalna waa muhiim maadaama bishii ramadaan lagu jiro, 10kii hore ay dhammaatay, 10kii raxmadda ee dhexe lagu jiro, 20 cisho keliya ay ka dhiban tahay. bishan ha laga faa'iideeyo insha allahu tacaala. inta lagu mashquuli lahaa waxyaabo kale oo ilaahay raalli ka ahayn oo ay ka mid tahay waxyaabaha waqtiga lagu dilo laadhuudu ka mid tahay oo dhalinyaradu intaan ognahay tv daawashada iyo waxyaabaha aan raalli ilaahay ka ahayn. khayrka qur-aanka akhriya qur-aanka insha allahu tacaala. rasuulkuna sal alla alay wasalam xadiis kale waatuu ku lahaa kun caaliman oo mutacaliman, ama noqo qof wax baranaya ama noqo qof wax dadka baraya. asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu.